autism journey. Autism aniga dhakhtar maahi waxaan sheegi doono dhan waxay ku base garaysan yihiin wiilkayga waa 24 jir Ismaaciil ilaa iyo 2 sano jir ilaa hadda uu 24 jiro badankeeda waxaan u shaqeynaya NHS-ta khayr Allah siiye gabadha xaaskayga wax badan aan leeyahay iyadaa samaysay oo aniga waa iska sheegtaa laakiin ma ahayn aabba maqan oo ilmaha markay leeyihiin inta badan hooyada ka mas'uulay waqtigaasna aadan shaqadeeda u badnayn marka waxaan idinla qaybsan doonaa autism-ka iyo arrimaha la xiriira maanta mawduuca kaasi ku saabsan yahay autism aniga dad badan oo aan isku khilaafnay way jiraan arrimahaas waxa ay yiraahdaan autism waa cudur autism cudur maaha markii intaas kaa dhaadhacdo horta dawo iyo wax kale iyo maxaa aan ku daweeyaa iyo walbahaarkaas wuu kaa degayaa markaad aqbashid waxaan inuusan cudur ahayn marka waxa ugu horeeya oo waalidiinta ka dhaadhiciya waxa waaye war haddii aad cudur u haysato waqti waxaad ku dhuminaysaa dawo xaggee laga helaa marka waqtigaas aad ku dhumin lahayd dawo xaggee laga helaa waa ku badbaadaya marka ugu horeysa labo autism ma aha mid keliya aniga autism aan aqaantaa ku dhaw beenaan kuu sheegay waxaan aqaanaa autism-ka haleelay wiilkayga iyo siduu asaga calaamadahan ku arkay iyo dhaqankiisa iyo arrimahaas keliyan kaala hadli karaa laakiin haddaan ku idhaahdo autism waan aqaanaa beenaan kuu sheegay oo laba qof oo autism leh isku si xitaa hooyo iyo aabbahaas ku dhalay way kala duwan yihiin sida cilmiga lagu sheega marka autism markay qeexeen dadka dhakhaatiirta waxay yidhaahdeen waa xaaladaas oo dadka ka aafaysa 3 dhinac communication-ka dad la dhaqanka iyo waxay kale ku dareen maxay ahayd dabeecadda laakiin intiiba communication-ka iyo dad la dhaqankay soo gelaysaa autism-ka marka sidiisa waa spectrum oo waa kala duwan yahay waa kala xaalado duwan yahay wuxuu kala yahay degree kala duwan autism awal waxay dhihi jireen severe mild hadda waxaasoo dhan waa ka daayay ASD lagu soo gaabiyey meesha aragtis ka gal laakiin waxaa ku jirtaa groupkaas muxuu yahay marka waa habkii maskaxdeena ay u dareemaysay informationka u qaadanaysay ayay ka duwan yihiin dadka autism-ka leh waa naga fiicnaan karaa lama dhihin autism-ka kulligiis dad waxaa ku jira oo genius ah oo inta adiga qaadaysa maskaxdaada ka badan qaadaya secondsna processing ku sameynaya marka maskaxda siday u process garaysa wax aniga halkan ma fadhiya waxaa qof ay hortaagan ishayda waa soo gudbisay processka qofkii yahay markiiba waa ii sheegaysaa waa wax isku xiran oo ilaahay isku xiray indhihii markay arkeen informationkii maskaxda markiiba waa ka jawaabaysaa way sheegaysaa dadka autism kale marka processingkaas maskaxda ka dhexdhacaya ayaa ka duwan siday u process gareynayaan dadka kale intaas ay dadka ugu duwan yihiin markii lagu yiraahdo marka autism waa xaaladda la sheegay halkaas ka timi oo lama dhihin autism waa cudur autism maskaxda intaas aan shaqeynayn oo intaas waa shaqeynaysaa maya maskaxdaada siday u shaqeynaysaa waxaa kaliya oo ka duwan waxa waaye information processing siday wax u qaadayso maskaxda oo qof walbana qofka kale uu ka duwan yahay ba dad bini'aadamka caadi oo dadkan caadi oo ku tilmaano autism-ka lahayn waa kala duwan marka horta autism sidiisaba waa kaas marka maxaa waalid ahaan aan waalidiinta kale u jeedinaya waxaan u jeedinayaa kow
autism marka ilmahaaga lagu sheego waa kow inaad ku sabirtid oo aadan waqti kaaga dhumin waxaan afka qaaday ku yiraahdaa grief ama aadan barooran qof bini aadan aad tahay waa barooranaysaa waa bini-aadamnimadii ka mid tahay oo waxyaabaha oo ilaahay nagu beeray waayo laakiin kaas inaysan kula dheeraan oo aad markiiba ka soo baxdo more aad grief iyo aad ku jirtid iyo baroorasho iyo why me macnaha waa qadarta ilaahay meelaad geyn kartid male maxay aniga iigu dhacday midda kale is-eedayn maanaa keenay siiba dumarka inta badan eedaas markaan uurka lahaa mayaan wax cunay ma kaniiniyaal baan aanan qaadan ma fitamiinka igu yaraa ma walwal baa i dilay ma safar baan galay waxyaabo adiga aad isku qufushay oo aad raadinaysid maanta dhan maxay u dhaceen oo aan shaqo ku lahayn autism-ka waay intaan sheegay oo dhan waxaa adiga cuntayna may keenin waxaad cuni weynina may keenin adiga inaad inkaaran tahay ama aad inkaarnayn ma keenin dhibaatada jirta oo dadka lagu manhabaabiyo waxaa ka mid ah qadarta alle in qofba si kugu fasiro waa nasiib daro masaajidaan joognaa waxyaabaha aan aadka wadaadada aan ugu dhiiriyo waxaa ka mid ah fadlan markaad ka hadlaysaan subjectyadan oo kale isku daya si waafiya inaad dadka uga dhaadhicisaan qofkii oo already dhiban haddii laga dhigo inuu isaga mas-uul ka yahay dhibtaan uu keenay dhibtaan u timid ilaahay qofna ma dulmaayo ilaahay qof dhib uma keenayo isagaa og waxaa sababta oo ilmahan autism-ka kuu siiyey waxaasoo dhan markaa haddaad tirahdid maxaan jawaabaan u raadina waqtina waa kaa dhamaaya maskaxdii way kaa dhamaanaysaa resourcesna uma haysid kaas kasoo gudub asagana kan saddexaad waxaa laga rabaa inaadan cidna ku hadlayn ilmahaaga waa waalidku dhan la hadlaya maaha hooyo keliya cidna ayaad ku hadlayn maxaan ka wadaa waxaan ka wadaa adiga inaad noqotid macallinkii adiga inaad noqotid speech therapygii adiga inaad noqotid dhakhtarkii adiga inaad noqotid sababahan waxaas dhan u sheegayana xabadan u dhigi doonaa kasoo qaad ilmihii waxaad ku aragtay delay dhakhtarka waqti badan la sugaa waddankan marka haddii aad ku fakiraysid dhakhtarka markii uu arka kabacdi ilmahaaga isagaa sheegi doona dhakhtarka ma haysto qalab oo ilmaha maskaxdiisa ku dhex gala waxyaabahan oo dhan oo behaviorka ku saabsan waxaa lagu ogaadaa waalidka siduu u communicate garayo marka waxaa laga rabaa maalinta ugu horeysa oo aragtid delay cunugaaga ku yimid qalin iyo buug inaad qaadatid oo aad calaamadahaas aad arkaysid oo dhan aada qortid si hadhowti cid kasta oo aad talo ugu tagto oo dhakhtar ah aad si fudud usoo gudbin kartid macnaha maxaa waaye cunugan dhagow isqabtaa waqtiyado isqabtaa dhagow isqabtaa kaliya maaha waqtiyado isqabtaa ilmahan biyaha markuu arko biyaha ma raba inuu ka baxo oo maanta dhan ama gacanta u dhiganayo ama inuu ku dhex jiro rabaa ilmahan biyaha ma taaban karo oo biyuhu ka baqaa ilmahan wuu qaylinaya adiga marka ha ka fakirin keliya waxaas dhacay maxaa keenay detective inaan waqti la rabaa waa ereyga kaloo rabo inaan ogaado detective wax walba waxbaa keena ilmahan intuusa dhagaa isqaban guriga ma buuqaaye ma ilmihii kalaa qaylinaaye mase waxaan ka badan intii jirtay aad jirta banaanka markuu joogay miyaa wax soo dhaceen oo weli daba socda ilmahan markuu wax uriyo ilmaha qaarkood lama oga waxaa urka qaarkiis buu dhibaa annagana inta badan guryaha cood iyo baquur iyo waxbaa lagu shidaa
ilmahan dharkan iska goynaya leedahay waayahay dharka iska gooye dhowr dharka noocee waayo ma dharkan kotonka ma kuwan laanada marka waxaasoo dhan haddii waalidka uusan document garaynin qof kasta oo aad la tashatid ama ha ahaado speech therapy ama ha ahaado dhakhtar kale waxba kuma qaban karo oo haddaadan sheegin baahida cunugaaga iyo waqtiyada iyo statisticada waxaa leedahay cunugan ma seexdo okay ma seexdo waqtigee uu seexdaa intuusa seexan ka hor ma in loo qubeeyo uu ku nastaa cuntooyinka qaar markuu cuno siduu u dhaqmaa waxaasoo dhan waxaa laga rabaa inaad adiga detective noqotid